waxaan leeyahay meel aad joogtaan bas wax wanaagsan ilaahay maalin wanaagsan ha inooga dhigo wiig wanaagsan bil wanaagsan iyo sanad wanaagsan Allah inooga yeelo inta ka bacdi saaka waxaan halkan rabnaa inaan ku soo jeedino warbixin kooban hadii la haydmo anagoo soo dulmari doona muddadii hadeer 12 casho ahayd oo aynan ku kulmin hawada aynan ku kulmin taasoo aan rabno inaan yar dul marno waxyaalihii intaas jiray iyo wixii qabsoomay waxaan rabaa marka ugu horeysa xaqiiqda jirta 12 casho oo aynu hawada ku kala maqnayn laakiin aan war isku keenseeganayn inaan wixii dhacay iyo wixii jiray aan isla socodsiino muddo hadda laga joogo 15 casho waxa ugu dambeeyay dagaalkii xooganaa ee magaalada ilaa 3 qaybood oo kamid ah ay damceen maamulka Muuse Biixi ciidamada maleeshiyadiisu inay ka soo galaan ayna ku guul daraysteen dhibaatada baahsan oo naf iyo maal balana ay ku geysteen intii ka dambeysay waxa dhacday ma yan dhicin dagaal toos ah oo la iskaga horyimay sidii kuwii hore oo kale oo muddada soconayay laakiin waxa jiray dagaal hoose oo maalin walba soconaya oo geysanayay dhimasho iyo dhaawac oo aan maalin qura joogsan haday jimco tahay iyo haday maalin kale oo la cibaadaysan tahay toona sidii bay u soconaysay duqayntii sidii bay u soconaysay weerarkii laakiin xoogagii hore badan ma yan lahayn taasina de waa tamar darrada ka dhacday ciidankii ama maleysiyadii Muuse Biixi taasi waxay ahayd dhacdooyinkii dagaal ee jiray waxaynu ognahay dhammaan dadkii reer SSC laga soo bilaabo buuro wadal ilaa iyo guumeys dadkii deganaa magaalada caasimadda haday tahay degmooyinka haday tahay iyo tuulooyinka haday tahayba dhammaan inay ka qaxeen inta laamiga ah maataduna iyadoo ka fekeraysa ama ka cabsi qabta dagaalada dartood inay ka qaxeen walina ay ku maqan yihiin banaanadii iyo meelihii duurka ahaa wax ugu soo kordhayna aanay jirin wax kaga dhacay mooyaane dhibaatooyin badanna ay ku hayaan ilaa hadda inta haddaan ka gudubno waxaan rabnaa inaanu jawaab kooban ka bixiyo xabad joojinta maalin walba Muuse Biixi ama kuwa u shaqeeya isaga ee ugu magacaaban boosaska ugu magacaaban la soo saarayo horta xabad joojin ka hirgashay sool ma jirto lascaanood gudaheeda xabad ka hirgashay xabad joojin ka dhaqan gashay ma jirto maalin walbana waxa socda dagaalka saaka ugu dambeysay hoobiyayaashii la soo riday waa kuwa kan waxaan ku raahdaa waa kuwan halkan yaala wixii hadhaadigoodii waa kan oo laga soo qaaday meelihii uu ku dhacay iyo guryihii waka hadhaadigoodii wakaas waa kuwii saaka soo dhacay oo la soo riday weey waa kuwii saaka la riday ee ku dhacay guryaha nasiib wanaag de guryuhu waa cidla oo cid joogta ma jirto sidaa darteed waxay geysteen oo aan khasaare burbur ahayn ma dhicin sidaas ay muujinaysaa xabad joojintan ay ku celcelinayaan mas'uuliyiinta ama nimanka maamulka Hargeysa ka tirsan oo hadii ay ugu sareeyaan iyo haday ugu hooseeyaanba ay leeyihiin xabad baa joogsatay horta xabad ay joojiyeen ma jirto annaguna waxaanu ku urursanay inaanu difaac gallo sugno marka ay soo weerar qaadaan waxaanu ixtiraameynay wada hadalladii la waday dawladaha dariska ah ay wadeen gaar ahaan Itoobiya ay waday baanu ixtiraameynay codsigii ay noo soo jeediyeen baanu dhowreynay oo ahaa inaan qaadano xabad joojinta waxaanu cadaynaynaa inaanu qaadanay 15 casho in la soo weeraro mooyaane aan weerar ragaysan gaadmana geysan toosna wuxuu ugu geysan taasi waa taas caalamka iyo cid kastana waa ogeysiinaynaa Muuse ma hirgelin wuxuu ballan qaaday
waxaa hadalka lagu badiyaa oo maamulka waqooyi galbeed Hargeysa Muuse Biixi ay mar walba ku celceliyaan tabasho waxaan leenahay halkan tabasho ma taalo waxba taban mayno waxaanu tabanaynaa ma jirto xilliga tabasho aan ku jirno aan wax tabanaana hadeer nooma furra waxaanu leenahay oo ku celinaynaa arrinta ku celinaynaa war tabasho ma jirto wada hadal aan wax kaga tabanayno wax ku sheeganayna ma jirto kala guureeye yayna qoomamayn wax isugu keen haray Muuse Biixiyow maamulkaasow wax isugu keen haray ma jiraan maalin cad baynu kala guure siriyo hoosba wax baynu isugu sheegnay kor iyo hoosba waanu u sheegnay wada hadal ku salaysan tabasho ma qabno noomana yaalo wada hadal kale oo la isugu yimaada wuxuu ku dhici karaa maamulka Muuse Biixi oo ka baxa deegaanka ama degmada Laascaanood ka baxa oo gaadha taas aan wada hadal ku gali karnaa sababtu waxa weeye dadka yagi maatada yadi ya caruurta yadi waayeelka yagi waxgaradka yagi dhammaan waxay ku dayacan yihiin dhul aan cidina deganeyn oo nolol ka suurta gelin oo nolol ka abuurayn bay ku dayacan yihiin waa wixii aad geysatay waxba kaaga ma haysano waxaanu ku leenahay ciidanka ka dulqaad magaalada waad og tahay wadadii bariga adiga fadhiya tii waqooyina adiga fadhiya tii nugaaleedna waad fadhidaa maxay tahay wada hadalka la furi karaa reerka yaga iyo dadka yaga iyo maatada yadiina cidlay ku maqan tahay oo haadii aan raawo kaga dhirgi tan labaad lama arag oo lama maqal aan ku dilo aan ku dul joogo aan ku dhaco ilana hadal meel ka dhacday iyo meel ka hirgasho anigu garan maayo annaguna garan mayno haddaanu istusnay oo si walba u eegnay oo dhinac walba u rognay waanu ka weynay halkaa waynooga muuqan weyday wada hadal ka sokeeya oo ka sokeeya inaanu la galo maamulka innaba nagama suurtoobayso waanu ognahay yeeli maysid oo yeeli maysaan oo adigaanu ku aragnaa oo kuwa kula shaqeeyaanu u jeednaa oo kuwa aad muxuu ahaa soo kicinaysaan baanu aragnaa oo dhiigga iyaga aad ku dabaaldegtaan oo xaflada u dhiganaysaan xabaalo wadayda iyaga aad ku faraxsan tihiin dhimashada iyo dhaawac gaadhay iyo burburka baa idiin farxad ninka intaa qaba iyo ninkii loo geystay nagu meel ku wada hadli karaan garan maayo annagoo waxaa soo dhan aragnaa haddana waxaanu ogol lahay maalinta aad og tagto inaanu wada hadal gallo wixii aynu ku heshiinay iyo waxaynu ku heshiin karinba inaynu maalintaas soo nimaadno laakiin inta ka horeysa wada hadal aanu gelaynaa haba yaraatee ma jiro waxaan maqlayay heshiis baa dhacay wada hadal baa noo socda waxba noo hagaagsan wax noo hagaagsani ma jiraan siriya saactoona kumaynu heshiin waxaynu isla garanoo meel dhiganay ma jirto odayaashii aad ka soo abaabusheen Hargeysa ka soo dirteenna ayna bay joogeen ayna bayna ka soo noqdeen bal hadda cid ay la hadleen iyo cid heshiiska kula galeen idinka sheegi doona anagu ma hayno waxaan rabaa dhammaan ummadda reer SSC inaan halkan fariin uga diro fariintaasi waxa weeye Muuse iyo maamulkiisii nabad waa diideen xabad joojinna waa diideen waxay ku go'aansadeen inay xabad iyo xoog sidii ay sool ku qabsadaan sidii ay ugu haysan jireen oo ugu haystaan wixii ay ka geysan jireen iyo wax ka daranna ay ku sii wadaan reer SSC taladii
muuse halkaasay ku soo biyo beeshay waxaanu aad iyo aad idinku bogaadinaynaa waan idinkalkan idinkaga hambaliyaynaynaa haddaanu nahay guddidii 3 ahayd wanaaggii aad samayseen halgankii aad gasheen jamaahiirtiinnii aad isgarab taagteen naf iyo maalna aad rag iyo dumar idinkoo aan u kala hadhin aad ku bixiseen waxaan leenahay hawshu weli waa sideedii wax isbedelena ma jiraan hawl kama daale weli waa hogadii ciidankii muuse weli waa dul joogaa maalin walbana weerar buu yahay waxaa la idinka rabaa sidii aad difaaciinna u adkaysan lahaydeen difaaciinna saad u adkaysan lahaydeen wixii aad ku dari kartaanna aad ku dartaan wixii aad qabateen waa idinku bogaadinaynaa waxa dambena waxaanu leenahay guntiga dhiisha iskaga dhiga halka aad joogtaan ha ka soo noqonina inaad ka sii durkisaan mooyaane ha ka soo noqonina ciidamada uu leeyahay muuse biixi shalay lahaa ha bixeen ciidamo dheeraadii halkan ma joogaan waxaad la dagaalantay oo aad is haysaan waa SSC waxaad meesha ku loolamaysaan oo dhibaatada aad u geysanaysaan waa SSC kuwa aad qaxisay iyo kuwa aad dishay iyo kuwa aad dhaawacday oo kumaankunka iyo boqolaalka dhaafaya waa SSC weeye cid ku dheeraadi ma jirto haddaan cid kale ku ogtahay muxuu aad dhibaato u geysatay adaa sheegi doona idinkaa sheegi doona haddii laga tegi waayo kuwa hiilka ku yimi ee Soomaaliyeed waa soo dhaweynaynaa kuwa daarood baanu soo dhaweynaynaa kuwa harti baanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo bili aadannimadu dhab ka tahay oo dhibaatada gobolka lagu hayo ka damqanaysa baanu ku soo dhaweynaynaa hadday intaas ku dhibayso oo ay ku dhibi weyday wixii aad geysatay horaad ugu macaashteen raggiina halka jooga horaad ugu macaashteen dhiigga Soomaaliyeed wasiiraad ku noqoteen madaxweynayaal baad ku noqoteen darajooyin iyo boqoraad ku gaadheen haddaad doontid haddana sool anigu wax kaaga soo kordhaya garan maayo sool wax idinka kordhaya oo kaaga kordhaya adigoo maanta 8 jir muusow waxa kaaga kordhaya oo aan fi aakhira seeg ahayn anigu garan maayo halleena aqligu ha shaqeeyo halleena tala wiyeera oo rasiina oo waayeel iyo wax garad ka taliyeen ka dhig meesha wax lagu qaybsan karo ama meesha lagu wada hadli karo oo wax la isku oran karo tag dadkana madaxooda uga dhaqaaq intaad sidaa tahay nabad dooni maysid umana socotaan riwaayadda iyo maradhaamaduna way iska dhamaanayaan waxaan ku soo gabagabeynayaa hay'adaha adduunka humanitarianka iyo beesha caalamka anagoo israacinaya ummadii ka qaxday gobolka Sool ka qaxday ee boqolaalka kun dhaaftay ee wali ku dayacan dhulka nololiba ka hirgeli karin waan waxbarashada lahayn waan caafimaadka lahayn waan biyaha lahayn waan hoyga lahayn oo qorraxda iyo dhaxantu haysaa